muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo batay magaalada Hargeysa gaadiidka ay la soo baxsanayaan amaba ay soo kaxaysanayaan caruur yaryar isla markaasina waxyeello kala duwan u geysta meelaha iyo jidadka ay marayaan iyo bulshada ku suganba. gaari noociisu uu yahay Nooha sumadiisuna ay tahay 48,110 ayaa caawa fiidkii waxa uu khasaare kala duwan soo gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Xira Awr ee magaalada Hargeysa. gaarigan noohada ah ee caruurta ay wateen oo xawaare xoog leh ku socday ayaa galay meherad yar oo ah nooca loo yaqaan goodida oo uu ku sugnaa jaamac oo ahaa odayda ah isla markaasina halkaasi kaga soo baxa fuutal daruurigiisa nololeed. waxaana guud ahaanba dadkii halkaasi joogay ay ku heleen gaariga noohada ah ee ku baaba'ay sandaqadii yareed ee jaamac, balse nasiib wanaag waxa uu noqday mid aan wax dhibaato ka soo gaarin kadib markii laga soo saaray labada taayir ee gaariga dhexdiisa. ayay hoos galeen labada taayir ayaa hareeraha ka maray labada taayir baa hareeraha ka maray inkasta oo ay jiraan dad kale oo waxyeello ka soo gaadhay oo uu ka mid yahay Axmed Ciise Shariif oo gaarigiisa oo nooha ah uu gaarigan ku dhacay ka hor intii aanu ku dhicin meherada jaamac ayaa isaguna waxa uu yiri مقادير ما دعوا حاجة ما بحكي صوت عنوا سألني ساهد ما كان حال مركع. جانا قاري خاص أنا ما شفته قاري بدي بيجي صوت هنا إنت صوت هنا. حال صوت صهار لكن كم شيء كان قاري إنه حاجة كيف السنة كيف إنه ما هو خاص بحاجة كذا. وحبحصد إذا ما با لين يرى gaarigan ku shuraakobay soo kaxaysigiisa waxaana halkaasi soo gaaray ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo baaraya sababaha ka lifay shilkan iyo sida ay xal uga gaari doonaan. shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa badiba waxa ay u badan yihiin dad aan dhameystirin xirfadii iyo waajibaadkii sharci ee loo baahnaa in lagu wada gaadiidka isla markaasina lagu sugo inaan wax dhibaato ah keenin.